إن قرح وقفك إسقرحيو سيكون ما كرتا أد إسويدية ما أكتا ولول محاني وبني آدم قف صوماليا أو مسلمة أو ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما أو إلهي قرآن كيسا كويري أو نفتاد هدادش أهل النار تهلوي يا سلوكو قنعي سي إسو قرحي أو إلى ولا تقتلوا أنفسكم نفتاد هدي نالو إسلام نمضى بسلكي وطايا هاي فالكيدو لو ما فوق واي سكست أوديشو نفتاد كحرام واي نيكي مركا أنيقا ولول مركا واي يابا سيكو دعي كرتا ninkaas markuu fakado aan ogaaday sargaal nabad sugidda markuu geeyay isbitaalka oon saaxiib ahayn aan iri ninkaas waxaan rabaa dawladdu in la warsado ma ogolo oo nabad sugiddu waxay rabtaa inay iido kaligeer wax ogaato laakiin aniga waxaan rabaa inaad ii dhuumiso oo aan ninkaas markuu caafimaad helo la kulmo ninkii aan la kulmo واي أنا أدرين الشكل ها شكل أنا حقيقي واي وهو أنا قلت لليرا أو كعيارين بنوني وحرعد واتنا هرواء أيو نويمي أيا بابور نسو أجستاجو مركوس نسو أجستاجي بابور كصوفو لنا ليريو وديد نور وكال عرب waa inaga tageen oo yiri waxba naguma sameyn makaan kala carar maalintii kale afartii aan meesha ku joognay oo isku xaafada ahayn laba kamid ah la dilay oo hebel waa la dilaan maqalno dhalinyarada yaryar dhalinyar afar qofood oo saaxiib ahaan ahayn waay laba dhimatay oo yiri maalintii dambe waa naxno yiri anagoo cabsayno meel mareen abaaburka dan agtana la ka soo dhigo soo fuulayna la yiri labadi kalena waa dhimato horanka fuulno marka waxa isdhaheen wax dilay waa nimanka hadda diidan way dili doonaan waa leedin dilaa oo dadka dilay shabaab dilaa la yiri ana waa raacnay waxaan la tababar jabhadeedana la gelisho wari jabhadaha ilaa iyaga baarta waa ma ogta qaybta oo militariga oo kale oo jabhadaha ayaa la geliyay ayaa lagu waay reerkoodii iyo qoyskoodina cidna ma oga cidna ma oga waa la dafay meeyaan galno wiri xabsiya la gelisho wiri wax dishibilin xumaad sameeyay la yiri xabsiya la gelishay xabsiga iyaan markaan ku jiro hadana waa la soo baxshay tababarkii la bilaabay dadkii istishhaadka loo diyaariyay oo inay isqarxiyaan loo diyaariyaan kamid naqdo wuxuu yiri meel ku taalo jilib agteeda ana la ku xiriyo xira weyn oo ku taalo Bu'aale area ayana la ku xiriyo waxaan tagnay yiri marka meeshaas tababarkeedu waxa waaye in baabuurkaas aad u weeday lagu baro qaraxasaad aad ma isu qarxi laheeday oo u taaba laheed lagu baro tababarkii marka aad dhameysata marka waxaad u taagantahay yiri isqarxinta 5 sano meesha joogo waa aan sugay hooyaday $41 la siiyay hooyiri bish hooyan u diraa hooyiri oo joogta suuqa xoolaha waa ii duceeyay meelaan jirana ma og ajira laha ku si igaarkay shaqada aad hays waa ku mahadsanta oo inaadna adigu ii shaqay lahayn aniga maanta mar horaan dhima laha waxaan cuno ma haysa lahayn iga waa ku duceeyay leedahay haba yaraatee ma ogu yiri intaad ku noosha ima leeyahay $41 waxay u tahawireen igaar ku ahayo aan anagu meelaan ku cunaa ma leeyahay oo waxaad gadayba ma leeyahay waxaad cuntana waa lagu siiyaa waxay ahaadaanba meel saxtan waa joogta meesna waa joogta wuxuu yiri marka waxa hadda wuxuu isku qarxaya meesha la yiraahdo eriyadan oo wadada Maka al-Mukarram way meesha qaraxu uga halaab wuxuu yiri markii ay qaraxa la sheega ya baxaha la dhahay qof walba gacantii taagay
gacanta markay taagto marka waa loo qoratoora quracaysi waxa la yiraahdo alloo sameeyaa marka inta gacanta taagta waxaa jooga marka niman cadaana oo eeshiyaan oo iyagu ma taqaanaa hawshaas si fiican u yaqaano nimankii arrintan keenaya oo sida dadka loola hadlo yaqaana maskaxdooda loola hadlo dadka loo maciya waxaa loo maciya qarax inaan la helin marka ninka aad u baahan la reeba miya qofku sidoo waxaa la leeyahay uu yiri xurul ciinad cawada u seexee meel kale ku furan ma lahu yiri oo ma bixi karti oo 5 sanaan ku jira oo exit ka kaliyo aad heli kartana waa inaad adigu qarax aado ma fahmay noloshu waa nacday nolosha adigu waa nacday ha meel kale ma jirto meel kale ma jirto meeshaas markaad gasho wuxuu yiri marka waa la soo showro waa naloo qoracaysiga yaa naloo dhiibo marka ana ugu dhaco yiri ana hela qoraga iyaga yaqaanay waa qabsee markaan helo yiri aan boodboodo yiri asay dadka kala ooyeen yiri asay waxay ay alla maslaxa yiri wala maslaxa waxa lagu maslaxa yiri in ma taqaana in ay waayeen la leeyahay doorkaaga waa la helaa ilaahay qofta uu qoraa ahelaysa wax la iska helaya maaha inaad adiga ma taqaana aad amaliyad kan samayso arrin ilaahay uu ku qoro cibaadada badiyo way macnaha ilaahay baryada badiyo ilaahay barya sayad ku heshiin meeshan waxa waaye in waxa laga soo guuraa ma ogtahay jannadii runta ahayd oo nabi maxamed uu hogaamay dagaalada jihaadkii quraanku wuxuu yiri ama ogta iyaga quraan ma yaqaanaan goore si u soo degtay iyo si ay ma taqaana ku socoto ma waxa la leeyahay nasiib waa arrin la heli kara ma wuxuu yiri anoo faraxsan aan maaska soo baxo waa la isooday magaalada muqdisho la keenay baabuurkii wuxuu yiri waa la saxmiyo waa saxmino yiri meeshii aan isku qarxay waa la igeeyo yiri waa soo warwareega magaaladan barto yiri kadib ma taqaana waa la igu xiray baabuurkii oo wixii saareeyeen darawalnimana ma hala igu baro waa soo wada baabuur yaraa daba socdo yiri aniga marka amiirkana wuxuu yiri telefoon waxa jiro yiri marka telefoonka oo xiran oo shabaab bis u xiran telefoonka adiga aad ku hadlayso qof kale soo wici karta ma jirto ma telefoonkan caadiga ah ama soo mid kale leeyahay sim karka waay sim karkan aad adigu ku hadasho oo Soomaaliya ka jira qirb waay halkaas mobile jawaab wici kara halka amiirka bis wici kara waay amiirka wici kara wuxuu yiri marka amiirka markaad adiga baabuurka dhaqaajiso dhigtad hal gacanaad ku wadi yiri gacana amiirkaad kula hadlay taad mare saata saasuu ku leeyahay baabuurkan kala waa ku daba socda wuxuu yiri meesha gadowga agtiisa ma jee steeriga meel la taabto qaraxa uu leeyahay meeshan kugu aadano salka hoosta labadaada lugood u dhaxeysana qarax kala meel la taabato batoona uu leeyahay midka saddexaadna waa amiirka qarxa hadii oo mobilkii ah oo mobilkii baabuurka ku dhiganay oo qaraxa sameynayna gariirka sameynayna amiirka haysto haddaad marka wuxuu yiri adigu aad adiga isku daydo yiri marka inaadan la hadleen adaaba lagu qaraxaa meeshaad mare marka inaad la hadasho inaad la hadasho laga xaqiijiyo waayo saas lagu hadlaa ma ku qasbanta kale ha waa guuleysata awada xurul inaad la jiife sidaas waa inta soo ku wadiyahay sidii aan marka meeshi markaan tagaan isqarxiyo qari horta markaan isqarxay ma goori oo aan taabday oo yiri qaaba way qarxi waa markuu ii qarxi waayay waana gubdhow waana kii salka salka fadhiyo dhamaan ku gubdhow waxa furmo yiri in albaabkii ay tuuro ileen qarxi mar aadan dhiman moogta inaad dhimatay aheed xanuunkii aan marka la boodo yiri irida ka bax
askari gacanta iiga dhigo yiri asaa ila carara kadibna amiirkiya baabuurka qarxiyo telefoonka soo dir sidaasay marka iiga fashilantay marka askarigaas qabtay la cararay ninka marka ninka isqarxinaa inuu yahay wuu dareemay askariga wuu dareemay ninka inuu yahay ninka isqarxinaa waa soo dayayo meeshuu taagnaayay aw qarax askarta uu ku ridaayay askarta inay ku dhimata oo aad u kanu ku jiriyay marka waa qabta asoo la carar ilaa wuxuu rabiyaa inuu qabto nin isqarxin rabo ha macluumaadkaas uu raadaa waa askari diyaar gaariga uu ka baqaa inuu qarxo ha gaarigaas oo inuu ku dhinto diide asoo la carariya asoo banaanka gii kadib qarxiyo ilaan waa daaha ma ogtaa ninkii wax ku dhaca kaasoo ma ogeen markuu warkiisii waa u qarxiya marka mobaylka marka meesha ku dhex jiray mobaylka meesha ku dhex jiray saas ayaa lagu qabtay horta la isku qarxiya qarxu marka waa qasab laga leexa ma karo xabsigii waa qasab oo ku soo jiray ninka xabsigu waa qasab marka nafta inuu xurul ciinad beena in lagu sheego adigu xurul ciinad aadee lagu yiraa waa halka rajo aad leedahay beenta ha lagu sheego maxaa yeelay waa lagu adoonsadaba adiga dhan wax la heesta guna aad adiga ninkaas aad la kulantay da'diisa bal ii sheeg maxuu kula muuqday ninkaas adiga 24 jir oo aadana وانا كموقضة هذا انت تكهلي كرتا انت لا مركز دم ولا توكت ولا حكومة مركز للداوي ننفي عن لقى دقة أسأي قرح ويوليه واجوبيا بابورك هدو يقرح له انت صوت ملح أوليه ها شلا يوغبيا إذا الله تو حتى أنا وك ساسا لي لبعت أي شيء ما محايا لي ولا دومي ولا برجرامي waxaa kaloo cuntadana darooga waa loogu daraa laakiin wuxuu yiri anaga markii aan cuntada cunno waxaan dareemaynaa uu yiri yara xididadeenna waa dhaqaaqaya waman axyaaha fakaannama axya naasa wiilkii oo madaxweynaha galmudug iyo isku dhigay qarxi iyo labada xildhibaan aqalka sare iyo cabdi qaybdiid iyo لمنعت نك الصدقاء ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وقرآن كأوجرية وأنك تدك كان كلاس عضنا وحواي أنك تدك لا يوسن أوجرية فكأنما قتل الناس جميعا إيه ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا إيه كذي نك هدف كيسوح هذا كردن ولاي كردن ولاي كان إنه كردن بدباديوها حتى براتك يودعد أنا واركني دعوة براتك يودعد